السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرفت بضن ملك استواتون كانت كتشوكتان فرحت باندين رجينيا نولو وناكسان يا عافيمات تاما وقال كان إن شاء الله وحين كسو قادان طولنا بصشا ما دادا لهاتي تيريان كان سنتا لدقالانتان سنتا مسكا حدي قفك مسقنينو mayay ka qaban kartaa qofka jirkiisa oo mayaa lagu daweeyaa basashu waxa rasmiga ah ee ay tarto ee dhakhaatiirtu ay isla og yihiin intaasaynu insha Allah muuqaal ku soo urursan doonaa haddaynu marka koowaad ku soo dhawaano basasha waxa jirta maada ay leedahay oo titiriya la yiraahdo maadadaasi waxay jirka kala dagaalantaa sunta haddaba haddii suntu laba nooc weeyaan mid waa toxic caadi ah xayawaan ka timi midna waa mid cuntooyinka inoo soo raacday oo cuntooyinkii la socotay ta xayawaanka ka timaada dhakhaatiirtu waxay tilmaamayaan haddii qofku markaa uu basal isticmaalo way ka reduce karaynaysaa dhibta suntaas way qafiifinaysaa intaanay circulationka ama blood streamka aanay raacin laakiin hadday blood streamka raacdo oo circulationka jirkoo dhan ay wada gaadho suntaasi basashu waxba kama qaban karto qaabkaas ayay dhakhaatiirtu arrintaa ay ka yidhaahdaan basashu maxay qabataan oo jirkeena maxay u tartaa basashu jirkeena waxay u tartaa wax aad iyo aad u weyn basashu waxa ay nafaqaysaa bakteeriyooyinka leeyahay useful bacteria ama bakteeriyooyinka faa'iidada inoo leh ee jirkeenu uu leeyahay gaar ahaan kuwa dheefshiidka ku jira qaybta digestive systemka kuwa inoo jooga ee faa'iidada inoo leh ee jirkeena ilaaliya ee wixii inaga soo raacay cuntada inaga burburiya ee pathogenka cuntada inaga burburiya ayay basashu bakteeriyooyinkaas ay nafaqaysaa markastoo bakteeriyadaasi caafimaadkeedu inoo wanaagsanaado caloosha inugu jirta waa markastoo wixii jirkeena soo gala halkaa lagu burburiyo oo qofku caafimaadkiisu xoogaysto oo qofkii cuntadii bakteeriyadu ay sidatay ee calooshaada gashay marka si fiican loo burburiyo ee bakteeriyooyinka faa'iidada leh ay la dagaalamaan kuwiina dhibaateynayay waa markastoo caafimaadkeenu wanaagsanaado marka basashu nafaqada ugu faraha badan waxa ay siisaa bakteeriyooyinka leeyahay useful bacteria ee qaybta abdominalka ama qaybta uurku jirta ku nool gaar ahaan stomach ama caloosha qaybtaas ayay waxay inooga qayb qaadataa inay inoo nafaqayso waa arrin aad iyo aad u muhiima sababtoo ah bakteeriyooyinkaas waxa ku badan dhaawaca soo gaadha waxyaabo badan maadaama ay yihiin meeshii mishiinkii wax ridqayay dheefshiidku waa meesha uu digestionku ka dhaco ama dheefshiidku ka dhaco marka dhibtu way ku badan tahay inta badan difaaca ugu faraha badan iyaga ayaa gala waa meesha wax lagu burburiyo pathogenka ugu faraha badan iyaga inaga qabta ama waxa ugu faraha badan ee dhibaateyn iyaga inaga qabta mar haddii ay sidaasi dhacdo waxaynu u baahanahay bakteeriyooyinkaas wixii nafaqayn lahaa iyo kuwii markaa wixii u wanaagsanaa si bakteeriyadaasi nafaqo fiican ay u hesho sababtoo ah bakteeriyadaas cadowga ay leeyihiin waxa ka mid ah cuntooyinka qaar baa dila xanuunada qaar baa dila cuntooyinkan aynu isticmaalayna lafteeda qaar bay ku dhintaan cadow badan bay leeyihiin haddii cadowgu ku batana oo bakteeriyooyinkaasi ay naga dhintaanna waxay naga difaacayaan kuwiina waxyeelaynayay ma jirto yacni bakteeriyooyinkii harmfulka ahaa markaa jirkeenii ku badanaya haddii bakteeriyooyinka harmfulka ay nagu bataan xanuunadii baa nagu badanaya sidaas ayaa markaa dhibaatadu inagu soo gudbaysaa oo dhibaatadu ay nagu badanaysaa markaa basashu arrinta ugu weyn ay ka qayb qaadataa waa taas sidoo kale antioxidant fiican bay leedahay anti-inflammatory wanaagsan way leedahay cuntadana dhadhankay u wanaajisaa oo soorta dhadhanka iyo dabcada ay u fiicnaysiisaa
انت اصلا كسو ururaya farxad iyo caafimaad taam aynu rajaynaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.